صفتين وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو ترتمي وتا كوحو صفتين وتا كوب لغو هردمي waxaa xalay la ciyaaray kulamadii 38aad ee Premier League Ingiriiska ciyaartii la wada sugayay waxay ahayd kooxaha Man City iyo Brighton iyo sidoo kale Liverpool iyo Wolves labadan kooxood ee Liverpool iyo Man City waxa uu dhaxeeyay farqiga dhibic taasi oo City ay dhigleeda Liverpool ay ka sareysay taageerayaasha Liverpool maamulkooda iyo ciyaartooydooda ayaa rajeynayay inay City ugu yaraan lumiso dhibco isla markaana iyaga ay badiyaan si ay u hantaan koobkii ugu horeeyay ee Premier League muddo 30 sano ah laakiin taasi waxa ay noqotay hal bacaad oo leesay oo City dhankeeda waxa ay maanka ku haysay dhibic ay khasaariso in ay horseedi karto cawaaqib xumo iyo inay siiso oo ay sii deyso koobkan fursada qaaliga ah maamulka Liverpool ayaa isha ku hayay ciyaarta City iyo Brighton 27 daqiiqo markay ahayd ayaa Brighton gool dhalisay waxaana u saxiixay laacibkooda Gilmary nasiib darase 4 gool oo ay kala dhaliyeen Sergio Aguero Emerick Laporte Riyad Mahrez iyo Ilkay Gundogan ayaa City ka saaciday inay 4-0 ku xaqdo kooxda Brighton taasi oo dhulka la gashay rajadii yareed ay Liverpool ka lahayd horyaalka murugada iyo cayaartooyga ayaa bilowday Liverpool kadib markii ay soo dhamaatay 90 daqiiqo ee ciyaarta ugu dambeyn waxaa la arkayay taageerayaal iyo ciyaartooy Liverpool oo murugada ka muuqata kadib markii xilli ciyaareed kale oo fashil ah uu soo dhamaaday waxaana rajada kaliya ee u hartay Liverpool ay tahay ciyaarta ay finalka Champions League kooda joon ay qaabili doonaan dhigeeda kooxda Premier League ee Tottenham.